قبلة وقويو قموغسي وقوقوياي قبلة وقويو قموغسي وقوقوياي قبلة وقويو قموغسي وقوقوياي قبلة وقويو قموغسي يا شعبوينا ريت فرعانود halkan isugu yimid oo ku salaamay salaanta islaamka assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh inta kadib maanta waxaan halkan isugu nimid inaan u hambalyeeno oo aan u aqlalo soo bixista madaxweynaha cusub mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Ismaaciil Seelici kaasoo aan halkan ugu qalay ari iyo geel oo aan ugu qalay guusha dabaaldegeedii insha Allah inuu Ilaahay xilka ku asturo oo uu fududeeyo waan la shaqeyn doonaa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa haddaan nahay deegaanka reer Turcaanood ee ka tirsan degmada Togwa Jaale waxaanu aad iyo aad u soo dhaweynaynaa oo aan la shaqeyn doonaa madaxweynaha cusub mudane Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumadda uu soo dhisi doono waxa kale oo aad iyo aad u hambalyeynaa gudoomiyaha xisbiga u cid mudane Faysal Cali Waraabe oo isaguna si wanaagsan iyo qaranka Soomaaliland markastaba aad eego xubin aad u firfircoon oo aad iyo aad ay ugu weyntahay qarannimada Soomaaliland iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro aan isagana aad iyo aad u hambalyeynayno dhammaan haddii aan nahay deegaanka Turcaanood ee ka tirsan degmada Togwa Jaale dhalinyar haween hooyooyin aabooyin waxaanu hambalyo ballaaran u diranaa madaxweynaha qaranka ugu dambeyntiina waxaanu ka rajeynaynaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi inuu kor u soo qaado wax soo saarka dalka oo maadaama aan nahay dad deegaan oo beeraley waxaanu ka rajeynaynaa madaxweynaha inuu xoog saaro wax soo saarka dalka shaqo abuurkana meelaha ugu weyn laga eegi doono waxaanu ka rajeynaynaa inuu ka dhigo wax soo saarka dalka wassalaamu calaykum beesha Turcaanood dhammaan waxaanu hambalyeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Seelici dhammaan madaxweynaha waxaanu Ilaahay uga baryaynaa inuu xilka u fudaydiyo sida kale waxaanu hambalyeynaa labada xisbi ee macaaridka gaar ahaan Faysal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan sidii aad mugga u leh ee uu ugu turay dadka reer Soomaaliland madaxweynaha waxaan leenahay Ilaahay xilka ha idin fududeeyo wassalaamu calaykum waraxmatullahi madaxweynaha reer Turcaanood ee maanta u soo dareeray wanqashan xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka mar labaad waxaan salaamayaa dadweynaha reer Soomaaliland oo dhan waxaan ugu hambalyeynayaa guushii weyneed ee ay ku gaareen doorashadii mudane madaxweyne halkan waxa ay reer Turcaanood maanta ari iyo geelba ku qaleen waqlashii soo bixista marka hore way ku ducaynayaan waxay kugu ducaynayaan in Ilaahay kugu fududeeyo xilka aad u qaaday ummadda in Ilaahay noqdo kii horumar dhameystiran Soomaaliland gaarsiiya saas bay kugu hambalyeynayaan waxaan kaloon hambalyeynaa asxaabta qaranka ee sida fiican u soo tartantay ha ugu horeeyo injineer Faysal Cali Waraabe iyo gudoomiyaha xisbiga ucida iyo master Cabdiraxmaan Ciro oo isaguna gudoomiyaha xisbiga wadaniga sidoo kale madaxweynaheenii qaranka ee ka dhaadhacayay baan isagana sii sootiina oo madaxweyne qaaliga inagu ahaa waxaan doonayaa halkan inaynu hambalyo uga diro xukuumadda Djibouti oo inoo soo dirtay waftigii ugu horeeyay oo si walaalnimo ah iyaduna inoogu timid oo inoo timid oo ciddii ugu horeysay ciddii inoogu dhaweyd ee aan garanayay cid ahaan isku dhaweyn ahayd oo wafti inoo soo dirtay ballaaran iyadana waan u mahadnaqaynaa waxaanu leenahay isku xidhnaanta iyo walaaltinimada labada dal ha sii socdaan waanu idin ogsoonahay inaad tihiin cid inayna cidina ka xigin waayo waxaad tihiin kuwa ugu horeeyay maanta halkan noogu yimid baa tihiin aad iyo aad baan idin wada salaamayaa aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan ka salaamayaa mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa waxaan maanta halkan ku qabsanay xaflad ballaaran oo nagu sagootay Muuse Biixi Cabdi waanu ducaynaynaa Ilaahay xilka ku asturo dadka islaamka meel kasta joogaan marka xigeenka waxaan salaamayaa dadweynaha reer Turcaanood ee isku yimid goobtan joogno inta kadib xaflad ballaaran baan halkan ku qabanay oo waqlashii madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Seelici taasoo aanu Ilaahay uga hambalyeynayna inay xalka Ilaahay ku asturo assalaamu calaykum waraxmatullahi ay qabatay beesha Turcaanood ay nagu soo casuuntay noo suurta galiyay ayaa mahad leh mar labaad waxaan mahad celinayaa beelweynta beesha Turcaanood ee degmada Togwa Jaale hoos timaada
oo si mug iyo miisaan la uga qayb qaadatay doorashadii soo saarista guusha madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa. Halkan waxaan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi, madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan ismaaciil saylici. waxaan leeyahay hambalyo allana ha idinku asturo xilka aad qaadeen. mar labaad madaxweyne, beeshani waa beeshii tuurcaanood, waa beesha ugu faca weyn leh, waa beeshii koowaad ee waqlasha madaxweynaha lambar 1 qabata kuna u ducaysa. waxaa kaloon aad iyo aad ugu mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo guul taariikhiya u keenay dalka. waa madaxweynihii ugu horreeyey isagoo xaq u leh inuu musharax noqdo, dhiibay aniga wayga gaadhay idinku qabsada yidhi wareejiye saab doorashada casriga ah inoo qabtay. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa isna. waxaa kaloo isna aan u mahadnaqayaa gudoomiyaha xisbiga ucud faysal cali xuseen oo ah nin ku suntan qarannimada somalilandna ku dheer tahay, oynu odhan karno lambar 1 buu ka yahay ilaalinta iyo jumhuuriyadda somalilan milgaheedaba. waxaa kaloo hambalyeynayaa musharaxii xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro oo isna ka qaatay hambalyeyna guushaa dhacday iyo sidaa quruxda badan loo kala badiyey. marka waxaan leeyahay mudane madaxweyne, beeshani waa beel mug iyo miisaan ku leh xisbiga kulmiye. waa beeshii yoomkii kambeynka ugu dambeeyey ugu faca weyneed ee halkan ku qabatay xafladda. waa beel haan daran beerisan xisbiga kulmiye ahayd. dhammaan guusha timidayna dadkii ku suntanaa ka mida degmada Togo Jaale. anigoo ka faa'iideynaya jaaniskaasi waxaan leeyahay dhammaan dadkani waa dad beeralaya. waxay kaa filayaana insha allahu tacaala inaad horumarin uga samayso xagga tabaca beeraha iyo nolosha kale asaasigaaba. aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya. wasalaamu calaykum. guddoonsiinaya bulshada reer Tuurcaanood ee dadaalka badan u galay sidii ay u soo saari lahaayeen madaxweynahooga, markay ku guuleysteenna nagu casuumay waanqal inay u sameeyaan guusha madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. aad baan idinka mahad celinayaa taas. midda labaad, xilliga aynu maraynaa iminka waa xilli wax soo saar, waa xilligii tabac aynu geli lahayn, waa xilligii aynu tabacan ka hadlayaa maaha macnaha kii beeraha qodashadiisii. waxaan u jeedaa dhismaha qarankan cid walba in beer kaga beegan. madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa xil baa la saaray oo aynu u dhiibnay. xilkaa aynu saarnay inuu u dhiibnayna ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu u fududeeyo. laakiin maxaa laynooga baahan yahay innaga? waxa laynooga baahan yahay inaynu la nimaadno tabacii iyo u heelanaantii iyo u soo jeedsigii, inaynu inagu wax qabsanno, inaga oo raacayna mar walba halka ay noogu jeheyaan iyo dhinaca horumarka ay noo wadaan. midda kale waxaan filayaa in xilligani dhammaaday xilligii guulwadaynta iyo muxuu ahaaye shaashadaha la iska daawado. xilligaas inuu dhammaadaan filayaa. xilliga aynu gelaynaa inuu yahay xilligii tabaca iyo shaqada inuu yahay baan rajaynayaa haddii ilaahay idhaa. oo dowladda cusub ee inoo curatay tijaaha ay qaadaysaa uu yahay tabaca in la dhidido sida uu horeba u tilmaamay ama xilligii kambeynka ku jiray uu sheegay madaxweynaha aynu dooranay mudane muuse biixi cabdi, in dhalinyaro iyo waayeelba loo guntan doono maxaan ku leedahay xagga shaqada. insha allah waxaan filayaa in ilaahay taana inagu guuleyn doono. horumarkuna waa noloshuna waa hir. marka hir la gaaro mid kale ayaa hilaacaya. marka hirar badan baynu ka soo tallaabnay, marxalado badan baynu soo marnay. maanta halkaynu u jahaysana waynu garanaynaa. reer Tuurcaanoodna waxaan leeyahay maadaama aad tihiin dad beeralaya oo maxaan ku idhahdaa wax soo saar, dee waxaan filayaa inaad idinkuna diyaar u tihiin inaad hawsha halkii hore kasii kordhisaan oo tabac aad idinkuna iyo wax soo saarka aad yacni aad maxaan ku idhahdaa dhabar tuujis aad samaysaan. madaxweynaha iyo madaxweynaha la doortayna mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu xilka
uu fududeeyo oo uu ku asturo beeshan reer Turcaanood ee degmada Wajaalana waxaan ugu mahad celinayaa inay kow noqdeen beeshii ugu horreysay ee wanqal u samaysa muxuu ahaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka la doortay guushooda beeshii ugu horreysay ee wanqal u samaysa inay noqdaan aad baad ugu ammaanantihiin waanan idinka mahad celinaya waxa kale waan ku dari lahaa madaxweynaheenii hore ee xilka ka degay isagana in aad u dacaysaan caafimaad qab iyo cimri dherer inuu ilaahay ku guuleeyo guul buu waddanka gaarsiiyey ciddaan bini aadmiga u mahadnaqina ilaahay uma mahadnaqdo waxaan leeyahay isagana ha loo mahadnaqo guusha uu ina gaarsiiyey ha loo mahadnaqo oo maxaan ku dhahday cimrigiisa iyo dadaal badan bay sameeyeen maxaan ku dhahday hawl badan bay galeen haddana maxaan ku dhahday way jirtay hadal togaaleyn iyo